Assalaamu calaykum daawadayaal, waa Shubaal Media. Halkan waxaanu idinka soo gudbinaynaa su'aal aad u cajiib ah oo ay gabar Hinduus ah ay weydiisay daaciga weyn ee Dr. Zakir Naik. Haddaba su'aashu waxay ahayd, waxaan ahay ayay tiri gabar Hinduus ah, waan aaminsanahay muslimnimada, waan aaminsanahay inuu jiro hal ilaah. Haddaba waxaan ku weydiinayaa ayay tiri, haddii qof muslina ama qof Hindu ah ama qof Kirishtan ah la jaro jirkiisa, waxaa ka imanaya dhiiggaasu isku wada mid ah, ma ahan waxa ka imanaya caano ama biyo ama wax kale ee ka duwan, waa dhiig midabkiisu mid yahay. Waxaan haddaba ku weydiinayaa sheekh, maxaa ay markay dadka muslimka u dhintaan loo aasaa, kuwa Hinduuskana ay u gubaan? maasha Allah ayuu dhakhtarku u jawaabay. Waxa uu yidhi, waad mahadsantahay haddaad aaminsan tahay islaamnimada. Waxaan kuu sheegayaa in islaamku uu yahay diinta saxda ah. waxaanu kaloo kuu sheegayaa in haddii dadku ay kala yihiin Kirishtan, Hindi iyo Muslim amaba diimo kale, waxa ay ku kala duwan yihiin, Hindiduna qofka u gubaan, islaamkuna ay u aasaan. waxa aan ku leeyahay, marka laysbarbar dhigo dhimashada ay dadku dhintaan, aasidda iyo gubitaanka, farqiga u dhaxeeya haddii aan kuu sharaxo, jismiga qofka dhinta ee la aasa waxa uu la falgalaa dhulka, innaga oo ay diinteennu noo sheegtay in qofka bini'aadanka uu ka yimi ciidna uu ku noqon doono. Haddaba waxaan ku siinayaa tusaalooyin kale oo aad u badan. Waxaa jira in dadka marka ay dhintaan muslimka ee la aaso, in dhulku aanay wax dhibaataa ku iman, dhirtana aan loo jarin, sida dadka Hindida ah marka la aaso ee inta qoryo loo soo ururiya oo geeda lasoo jara ah lagu gubo, taasoo dhulka ku keenta buu yidhi dhibaato ah qiiq iyo saxaxumo. Ma jirto, muslimku ma aha sidaa. Marka la aaso waxa uu dhulku noqdaa mid fertilizer ah, amaba waxaa kora dhirta oo soo baxa. waxaa xataa dhicda in sannado yar gudahood lagu sii isticmaalo qabriyadii dadka hore loogu aasay, iyagoo marka ay dhammaadaan. waxaanu ognahay in Hindiya gudaheeda ay aad iyo aad u kordhaan jarista dhirka, kharashka ku baxa dhirtana ay aad u badan tahay, in iyadoo dowladdu ay tiri yaan la jarin. Haddaba haddii ay tiri dowladda yaan la jarin dhirta, maxaa lagu gubayaa way dadka? Taa ayaa keentay in kharash badan lagu geliyo sida dhir loo beero oo loogu gubo dadka. Laakiin tan ah islaamnimada, waxa uu dhulku ku sameynayaa isbeddel. Marka la aaso qofka, dhulka ayuu la falgalayaa. Haddaba kumanaan rubi ayay maalin walba gaaraan, kor ayuuna usii kacayaa qiimaha dadka Hinduuda marka la gubayo, qoryaha lagu gubayo. waa Shubaal Media, kulanti dambe.